عذاب عليم. وبعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحويا معاه halka waxaad marti ugu tihiin waa barbaarta ayaha ummadda sida magaca halka inooga muuqata barbaarta ayaha ummaddu sida ay u tihiin waxa weeyaan waa dhalinyarada isku tagtay kana jirta gobolka Awdal laakiin aan local way khaasna ku hayn gobolka Awdal ka dhaxaysa geeyiga Soomaalida waxa weeyaan barnaamijkan caawa halka timaadeen waxa weeyaan waa barnaamij aan filayo in aan hore looga qaban gobolka Awdal ama aan oran karo geeyiga Soomaaliyeed ama Soomaaliland ama inta waxaan guurigarashadeen iyo heerkeen gaaro barnaamijka looga qaban waxa weeyaan waa barnaamij ka hadlay waa barnaamij lagu baaray xanuunku muxuu yahay sidii dawada u helo waa barnaamij lagu baarayo dhibaatooyinka dhalinyarta ka hortaagan horumarka ay horumar waxa weeyaan horumar wuxuu leeyahay horumarku qayb fara badan buliyo horumar waxbarasho jira horumar waxa jira oo hayay tacliimeed ba jira horumar dhaqaale jira horumar shaqo jira ani horumar waxa weeyaan waa barnaamij aynu kaga hadlayno waa barnaamij aynu rabno inaynu ogaano halka aynu ka halkuna ku yaalo si aynu isku daweyno waxa weeyaan maadaama ay sidaa tahay barnaamijkeena waxaynu ku furfuranaynaa kuna bilaabanayna sidii noo dhaqanka hay diinta barnaamijkii caadada iyo hidaha u lahayn aayad quraanka kariima waxaan u yeerayaa Zakariya Ahmed Ali waxaan u yeerayaa walaal Zakariya Ahmed Ali si aayad quraanka kariima u furo waxaan leeyahay tacaala Zakariya udlu علينا ما علمك ربك ورباه عليه والداك والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. barnaamijku waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood oo kala ah in halkan adagaysan dhalinyarada hal fadhida inay muxuu ahay urtiga ku soo bandhigaan dood cilmi baaris ama dood ay kaga hadlayaan waxa ku arrintan iyada ay lafteeda dhibaatooyinka dhalinyarada oo taagan waxa kale barnaamijku leeyahay in la soo bandhigo sida ku qoran research ama cilmi baaris ay ka sameeyeen barbaarta ayaha ummaddu muxuu ahay dhibaatooyinka dhalinyarada oo taagan waxa kale oo barnaamijku leeyahay qayb kale oo yadna important qayb kale oo yadna muhiim oo ah in muxuu ahay ay martay inay soo qayb gashay ra'yigeeda fikirkeeda waxa ay yadna isteedahay wax gaar ah inay leedahay inay soo gudbiso waxa yahay imika oo si toos ah barnaamijka kale waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha barbaarta ayaha ummadda si uu niisiyo barbaarta ayaha ummadda waxay tahay si uu suuqiin baran garanaysa cidii hore taqaani laakiin culum kale ma loo biirin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Mustafa Caraale fale tafadal isagoo hadalkiisa soo qaadaya kusoo dhawo maslaxa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين وسيلتها تقول مسؤولين مسألة قشيتها سلاطيتها وحجرتك أقوياء هندا شكلها هذيك بشدة يدمر مرتدى كل دور كيف بدي بقابلني كقبل هي حديث القصة ما ضش عليك نعاون القصة قبل البرنامج وحب السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كديب حبينا وحبينا تقالين حبيبنا عاوة حبيبك جمعين هروب تغير لكن حبيبنا عاوة حبيب سجود وحبيبنا الكلام وحبيب هرمض نقول هرمريت الدنيارة وحبيب قبل ما يدنيارة الصدق له هرمري لها وحبيب كسر تنادل الرسولية كتاريخات الدنيارة الصومالية ما يكسر بسويه حبيبنا عاوة وحبيب حضور وعدم دنيتها يضع حضور وتهاي أنت دبعتوي كدرية دلكين هيستمعها من القياسري ومن أبدان marka waxa habeenkan noqon doona mid dhammaan buu noqon doona dhallinyarada Soomaaliya meel kasta ku sugan yihiin habeen taariikhda ku sugnaatuna waa habeen inta badan ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda madasha golaha wasiirada laga joogo wasiirka wasaaradda qorsheynta oo aad ugu mahadnaqayo haddana ka soo gudbo sifirda sifida hay'adda habeenkan oo la soo gudbo barnaamijkan habeenkan caawa sida boorkeedii ka muuqata hadda la kasaan caawa waxa martuutiin ururka barbaarta ayaha ummadda oo si iskiis ku taagay horumarinta dalkaaga iyo dadkaaga barbaarta ayaha ummadda waxa la martuuga soo bandhigida ejida rasmiga ka soo baxday dhibaatooyinka cilmi baarista barnaamijka sameeyay oo muddo badan soo qaadatay cilmi baaristaas oo ka sameeyay gudaha gobolka Awdal barnaamijkan waxa uu ahaa mid bilaabmay sanadkii ruuxa hay'ad foodin dabiiqadiisa bisha 12 waxaan u bilownay kadib markaan aragnay dhibaatooyinka baaxadda weyn ee haysta guud ahaan badalida Soomaaliland iyadoo ka haystaan dhibaatadaas xagga horumarkaas oo noqonaya xagga siyaasadda xagga waxbarashada xagga maamulka xagga ganacsiga iyo horumarka soo gaari karo shakhsi kasta oo horumar ruuxa dhalinyarada oo ku sugan dalkeena
waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo ka geysatay barnaamijkan gacan weyn oo ugu horeeya gudoomiyaha akaadamiyadda nabadda iyo horumarta somaliland maxamed faarax oo habeenkan caawiso oo ka cuuqabtay oo ka soo qayb galay barnaamijka sababo awgeed xagga shaqaa oo ku sugnaysa magaalada hargeysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gacanta waynu ka geystay waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa barnaamijkan iyo ciidda fulisay wasaaradda maaliyadda shirkadda telesom wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda warfinta ee gobolka awdal waxaan sidoo kale mar naba ay ilmaami doonayna halka lagu mahad celiyo cid kasta oo taageeradooda hay ku taageersay barnaamijka inuu barnaamijkaasi noqdo mid aan qabsoomin iyadoo la-aantoona ay qabsoomi lahayn barnaamijkaasi waayo waxaa marka waxay qabanaysa labada dhinacba dadka waxa ka arataa negative iyo positive iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa urka barbaartaaya ummadda haddii aan usoo laabto urka barbaartaaya ummadda waxaa xidhiidhibada loo taaga loo aasaasay sanadkii 2014 bishii tobnaad waxaa laga aasaasay gudaha magaalada boorbe xarunta gobolka hawdal barbaartayaha ummadda waxaa ku midoobay oo ku bahoobay dalin wadaaga fikir iyo waxqabad dalin had iyo habeenba u helan horumarinta dhalinyarada dalkooga iyo horumarinta dalkaba barbaartayaha ummadda waxay ka kooban tahay 4 wiil iyo 4 hablood oo dhammaanba halkoogu yahay oo had iyo habeen ka seexan sidee u horumari lahaayeen dhalinyarada somaliland meel kastoo ay ku sugan yihiin kuwaasoo inay qayb ka yihiin waayo marka adigu bilowday ee ka bilowday nafsadaada waxaad gaari kartaa inaad ummadda kale wax u qabatid taasi waxay keentay ee dhalisay in barnaamijkani guud ahaanba ka qabsoomo somaliland isagoo noqonaya barnaamijkii ugu horreeyey ee nuuciisa oo kale ah ee ka qabsama guud ahaanba dalkani somaliland barbaartayaha ummadda hadda waxaa jira sababo ka duwan loo aasaasay barbaartayaha ummadda kadib markaa anagoo ka duulanaa dhibaatooyinka dhalinyarada haysta waxaan isla garannay inaan dhidibada u taagno ururkani barbaartayaha ummadda si aan wax ugu qabanno anagoo ka soo karnay danaha ee gaabka waxaan usoo karnay daryeelka danta guud ee bulshada taasi oo dhammaanba muhiim ah qof kastoo dunida geedka ku sugan inuu daryeelo danta guud ee bulshada waxaa jira haddaba fishan iyo mission ay hiisanayaan ururka barbaartayaha ummadda fishanka iyo mishanka oo ah himilada fog iyo himilada muxuu ahaaye dhow ee ururka barbaartayaha ummadda wuxuu yahay mid ku salaysan inuu barnaamijkani hadda bilowday maaha mid istaagaya waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan ka qabanno gobolada somaliland waa barnaamij aan ugu talagalnay markaan ogaano dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ee ka haysta xagga horumarka kadib inaan raadino xalkii kadib markaan xalkii raadino haddana inaan raadino yaa wax ka qaban kara oo nusheego ku idhahdo yaa wax ka qaban kara xagga dowladda in iyadoo kadib ka qaatay kaalintooda oo lagsoo idhahdo waa tan dhibaatadii ee wax ka qabta ganacsatada sidoo kale iyagana in la idhahdo oo safrisiiya miska laakiin barnaamijkan waxa uu yahay mid u bilaabmay guud ahaan badheerada somaliland waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta la joogta mas-uulkaxeynka wasaaradda qorsheynta barnaamijkani ma aha mid ku eegeliya gobolka awdal waa mid u talaga inaan gaarsiino dhalinyarada kale ee gobolada dalka dhalinyarada gobolka awdal waa qayb ka mid ah dhalinyarada somaliland laakiin habeenkan caawa waxa ku sugan marti kala duwan ka socota dhalinyarada hargeysa iyo gibel iyo boorma hase haatana haddana waxa weeye in lagu dhex tago hooyigii ay ku sugnaayeen oo loo sheego loo bandhigo dhibaatada waa tan ee se wax uga qabaan bal inaan ni tusno ama nii soo bandhigno cilmi baadhistii barbaartayaha ummaddu ay qabatay waxay ahayd noocay ahayd siday ahayd waxa aan baaraynay jaamac ahaan ahayd waxay ahayd circumstanceska ama caqabadaha hortaagan dhalinyarada inay ka qayb qaataan social developmentiska ama yani developmentiska ama horumarka jira gebi ahaanba sidoo kale waxaa contact iska ahaa barnaamijkan saaudarkiisiiba oo barbaarta aayaha ummadda ururkaasoo isku xilqaamay inuu soo qabto yani cilmi baadhistan ama dhibaatooyinkeena wada haysta dhammaanteedba in aanu helno yani xalka haysabta ka qurusan tahay kabacdiina aan soo helno xalka waxaanu mahadnaqaynaa gebi ahaanba ciddii gacan ka geysatay barnaamijkan oo ay ugu horeyso akaademiyadda nabadda iyo horumarinta ee somaliland akaademiyadda nabadda iyo horumarinta ee somaliland runtii waxaan u mahadnaqaynaa gacanta weyn ay ka geysatay barnaamijkan iyo qabsoomidiisa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda oo yadna gacan ka geysatay iyo telesom oo yadna gacan ka geysatay waxa aan maxaa haydeen taagagaleynay 4 qabood bay ahaayeen oo ahayd educational developments inay horumar ka gaaraan dhalinyartu xalka waxbarashada aan taaga noo ahaa yani economical ama dhaqaale ahaan maxaa qofka u diiday inuu noqdo dadkeenani soomaali ahaanba dad dhaqaale ahaan horumarsan loo sameeyey presentationku yani focus group discussion oo inta maxay leedahay group ahaan dadka loo soo ururiyey ayaa discussion la leeyahay sidoo kale waxaa jiray maxay leedahay questionnaire oo open ended ahaa sidoo kale waxaa jiray video interview oo aad daawan doontaan waqti dhow waxaa ka soo baxay
qodobadaasi oo xagga ku arkaysan qodobadaasi waa guud ahaanba marka la isku wada geeyo intii imkaan ka soo hadlay waxaa ka soo baxay oo findingska waa qodobadaas weeyaan waxaa ka soo baxday kow inay jirto oo ay dhibaato ku hayso dhalinyarada widespread unemployment oo ah yacni shaqo la-aan baahsan gebi ahaanba oo haysata dhalinyarada ku nool gobolkeena ama intaan ka samayno oo ahaa hadda ahaan gobolkeena sidoo kale waxaa jirta illegal immigration waa dhalinyartiyo wada tahriibaysa waxaa jirta ardaydii waxbaranaysay oo si frigmentaya ooga baxaysa waxbarashadii sidoo kale waxaa jirta governmentis u balaangaraysay ama maxay ahayd inay dowlad u balaangaraysa dhalinyaro inay horumar gaaraanimo jirto sidoo kale waxaa jirta iyaga dhexdooda dhalinyarta dhexdooda oo dhifashin jiro ama iyagu kala qayqaybsan oo qodobo wax aaminsan tahay qodobo meel gaara u jeedo oo iyagu dhexdooduba ayna isku tiirsanay ayna wada raadinayn horumar sidoo kale waxaa jirta qabyaalad oo ah guud ahaanba soomaali talagaalisoo ka dhareegsanahay sidoo kale waxaa jirta dadkii haddaba u hal abuurka samaynayey ee maxay ahayd inay horumarka ku fikirayey inay wax bedelaan oo iyaguna gebi ahaanba noqday dad maxay ahayd inay is-appointed oo ka niyad jabay howlahaas oo idin barbaarta aayaha ummaddu haddaba waxay iyadu guud ahaanba recommendation ku bixisay in organisation ahaan in ay kaan si yacni naxariis loogu codsanayso dhammaanba yacni cidda kuugla dhalinyarta cid kastay ahaataba in ay dhalinyarta u samayso shaqo inay dhalinyarta u samayso yacni madalo ay ku kulmaan oo gebi ahaantoodba midayso maxay haydeenay fikirkooga haddaba iminka waxaynu gelaynaa waa barnaamijka qaybtii ugu xiisaha badnayd oo ah dood ka dhici doonto hortii ay doodayaan waxaan ku yidhi ardayda arkaysaan doodooda diin doonto hadiya حاجة كنت هقول لغة الإنجليزية يحصل دن نقالة دن سياسة دن عقبات يتوصل حاجة كنت يضع عاوة يبدأ من جوالات كذا وكذا سومالنا كذا كمان نقول موجود الجيسة يمكن تلقوا بكام إذا كان لا ولا كسيسة وأيام سمعين سي وكبر ساعة هديسي وفرس سوى كلا زيادة سوسيال waxa ku xiga ismaan sidii wasnaa shaqan jaamacada sidoo kale waxa ku xiga Bashir Xamed Hussein كثير ده وحي كثير عبد الله هذا عايشة حبيب يو حبيب هذا بقى أي أنا ده يأخذ ده بسلا حاسة ده حاسة إنه تجاربي وبيت تيجي فروما كذي فروما رح تلاقي حاسة إنه هو إيه فروما حاسة الدنيا وحرت بعدين عقبت فيه وحوي قاعد تحرير اللي يدوي تحرير يا رشدي ومصر يعني كيف نسوي يعني سيدا بنت عقبت لقانا يلا أوراق ويدوش بنت اليوم الحوية حسوي عقبت لقانا أوراق اليوم التاريخ الحوية حسب القبيلة والقبيلة اللي في الشارع عليه كتبوا أي جمعنا إن الشغل أو الشغل السجود meel walba waxaa taalo wax loo yaqaano qabyaala yaa tahay ayaa tahay reer ma tahay in waana wax dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhami ay ka siman yihiin ma wax gobol u gaara mana wax caasimad u gaara wax meel walba laga dhaqmo weeyaan Usman Hussein اسمع أنا مسجد محيط لطعي الميرة محيط وقتها أيام محيط لطعي الطريقة عشان وقع عن كل شيء دي محور شرع أنا وهم خويدينها مين كريم أو لوري كريم أو سيكلا ده يقولين إنه ورد نقالة دميرة دي كده يأخذوا بيجي دميرة ده يقولي واحد نقالة هذا ورمز بالله كنت لاشين مرة كبار خلينا أقوام تنا حكتوا هذا بيس هي أقوام Somaliland horta way ka xadan tahay yarano kalaamay waayo saahan waxa jirta wax ma jiro curriculum adiyada waxa laga meesha laga dhaqaaqa ama meesha laga socdaa waxa weeyaan curriculum hadii curriculum ko waxbarashada yahay strong iyo waxa qoyska waxbarashada ama tuheer jaamacadaha oo tan secondary ama waxa qoyska mid aad u afaysto saahan wadamada ay waxay ku maraan ama dhaqaale badan ama project oo wax lagu bixiyaa sida loo tayeeyahay program ama manhaj soo marka la sheegay horumar dhalinyarta maxaa ka hortaagan
أنا فكرها بأصلا هذا واحد وراك أنا واسط حفظه تقول ماذا يتهي قبيلة دوبيا وتطلع من بابا رأي كرا وطلبات يتهي تهريبك أو جميرته إذا كنت تهريبك بكتبة يتصدح على وراك كرا وحبرش معنا أنا وراك كرا أو المجالين وحبرش معنا وياك لما وراك كرا لكن واحد نقول السائدة هذا إن مرينتي مش بوشة وحيارك كرا haddii aan usoo noqdo halkaad tiri qabyaalada horta waayo u fiirsa dadkeena dadku way kala waxa oranaya qofkan meel qofkan waa hebel meelo kale waa hebel kan kale waa hebel bal oranaya markaasaa dadka bay qabyaalada dadkii u kala tirtiraysaa oo u kala saaraysaa laakiin haddii aan asal loo fikiray oo dadku isku wada xiran yihiin taa loo fikiray saasa lagu nahayo waxaad socon kartaa dhalinyaradu ku hortaagantii horumar gaara sidoo kale haddaan kuugu daro miyayna noqoni haddii layidha adan kale u eegno saaxada kale oo nidhaahno maamul xumo ayaa dib u dhigi karta dhalinyaradii oo haddii dhalinyaro loo sameyn lahaa tababaro iskidisar ay ku bartaan oo ay ku shaqaystaan way horumar bay gaari lahayd ballaaran oo ah dhalinyarada habkeenu u fikirayna ma yahay hab istaandara hab aynu kula jaan qaadi karayno ummadaha kale ee dhigeena hab aynu inagu ku doonayno aayaheena nololeed hab aynu inagu ku kasban karno nolol aynu u baahannahay oo aynu doonayno inaynu gaadhno ma tahay oo taasi waxay noqonaysaa hagu fikirkeena inagu heerkeenu doonayno inaynu gaadhno run ahaantii markaad ka hadlayso waxyaabaha ku jira laabtaada ee ah inaad adugu hore u socoto ma jirto cid ay ku xidhan tahay hor socodkaaga ama ka mas-uulahay ilaa iyo adiga ay kaa soo gooda inaad hore u socoto oo tallaabo ma dhaqaajin kartid ilaa adigu aad istiraada tallaabso ta saddexaad waa maaliyadii oo haddii aanay dhaqaale jirin aad wax ku hirgeliso laga fikiro oo fikir iktiraaco aan ku samaynayo runaantii gabaddayaha saliid baa laga tuujiyaa haddii geedkaa gabaddayaha ma sunflowerka waxaanaynu geedkan aynu naqaano aan israado adigu bad awood u yeelo inaad ka tuujiso kadibna aan ku dadaalo cid iga caawisa haddii aanaysa ama waxaan ku soo saaro haddaan ishii dalbanayo haddaan waxyaabihii kale kimikaalkaan kusoo saarayay dalbanayo haddii aanan dhaqaale haysan maanta waxba ma qabsan karayo haddii aanu ka dhexbaxno saddex musaaloodee kugu soo noqonay ee ahaa waxaa dib u dhigay qabyaalad iyo maamul xumo iyo iyagoo dhan haysan dhankii maaliyadda ka mid hadda miyayna la odhan karin oo loo eegi karin dhinac kaloo la odhan karo dhalinyarada iyagaa dib isku dhigaya oo ka mashquulsan horumarkii oo ku fikirin migsi iyo inay horumar gaadha oo ku mashquulsan jaad iyo taariid iyo yub jacayl iyo waxyaabo noocaya miyayna dhankaasi jirin haayo waa la odhan karaa laakiin taa waxaa keenaya caqabadanii markii dhalinyartu ay tahriibka ku fikirayso ama ay noloshiiba ka dhacayso waxa weya arday dhalinyarta niyadsamayso waxaa keenaya caqabadaha hor yaalla horta haddii aan caqabadahaasi hor ogaan lahayn dee tahriibuu jireen wakadaalika muu jireen dee waxa weya inuu qofkii noloshiibu ka dhaco oo uu niyadsabo dhalinyarta caqabadahaasoo la xaliyo ayaa ardayga ama dhalinyartina imanaysa inay iyaga isku kalsoonaadaan oo horumar ay sameeyaan maadaama qabiilkii aan soo sheego layidhi haddii qabiil waxa lagaga bixi karaa dhalinyaradu isku duubnaata oo iska saartantii ku ah sideen shaqo ku keeni karnaa sidaynu uga baxno guddigan ila haysta ee iwadida horumarsa suwarta qofku macnaha inuu isagu awooddiisa garto macnaha inuu isagu creative yahay oo macnaha uu wax samayn karo isagu inay is-aaminaha qurux badan macnaha garto inuu isagu change samayn karo oo macnaha noloshiisa macnaha gool ka leeyahay inuu macnaha gaadho meesha muhiimsan second waxaa ka qayb qaadan kara governmentka macnaha dowladda oo kale waxaa ka qayb qaadan kara ganacsadayaasha waxaa problemku yaallaa uu taagsan yahay oo macnaha problemku taagan yahay yaa isku xidhi kara macnaha isku xidh baana jiri wax connection la idhaaho oo macnaha isku xidhaya ganacsatadii ama dadkii serviceki bixinayay iyo macnaha dhalinyartii doonaysay inay shaqa macnaha ay ka hesho macnaha organisationada ama macnaha dowladda iyo governmentka noocaas oo qofkii dhalinyartii macnaha joogay magaalada bulan ama wax bartay jaamacadii wax laga dhaa grade oriented wax la dhaa jira oo macnaha qofkii lama controlayo darajadii wuu iska keenayaa u socdaa macnaha cilmi jaamacaddii kalama soo baxayo wax quality control la dhaa
ومعناه قفكم كان يسيب عبرياي وماشي وكل كان يتحاب مجهول ولو قفكي لعب بقى قفة قلتني بس بقى قفة قلتني هذه اللي كانت روزتي لا بقى قلتني يعني ومعناه توبي وخلاص هذا سامعنا سوقنا توسيس معناه جامعات توسيس يا كوتشي يا ده حق قلتني قليلا معناه إيه يربح قلتني والله كانت رولا كان انتهى الشقاوة الله الفرع هذه معناه لا كانت رولا عندي هي معناه برشا ماشي كلا صباحية kusoo dhawaada dhaxtaanka hidii sheegtay in yar dood way noo socotaa insha Allah waxaanu eegi muxuu ahaayay iyaguna bal waxay dadka magaalada ku qabaan salaashligeed runtii farxad iyo cisi iyo wanaag iyo sharaf bay intay caawina halkan idinla joogo anna waxaan idinka mudanahay intaan hadlayo inaydaan hadal waayo ilaa hargeysaan anigoo labadii shaqo ka baxay ayaan awoodiin gaariga faraha u soo daray si aan caawa halkan idinla joogo oo dood muhiim u halkan ka dhacaysay oo qarankan iyo Somalilandba muhiim u ah inaan goobjoog u ahaado si aan codkiina intaan u qaado aan madaxweynaha u gaarsiiyo oo aan u gaarsiiyo wasiilada ay khusayso intaanan wixii aynu ka doodnay aan qayb ka noqon waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo oo afka xukuumadda ugu mahadnaqo anigoo ku hadlaya afka xukuumadda oo ku matalayo wasiiladii caawa aanay u suuro gelin halkan inay nala joogaan iyo madaxweynaha iyaga oo runtii mudnaan gaara siinaya arrimaha dhalinyarada waxaan u mahadnaqayaa barbaarta aayaha ummadda oo inoo qabatay caawa tallaabo loo qaaday dhinacii wanaagsanayd iyo dhinacii horumarka waxyaalaha caawa halkan ka dhacay ayaa jawaab u noqonaya dhalinyaradu inay horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka tahay saddex arrimood oo aad u muhiim ah halkan ka dhacay waxaynu sameynay wax la yiraahdo wax imaka qiimalaho round table discussions ama debate miis inta dad aqoon-yahan oo dhalinyaro ah lagu soo wareejiyey la yidhi kaale oo ka dooda dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka haysta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waa miis ka duwanaa miisasa kale waayo haddii rag aniga ilaaliyo inta naga waaweyn halkaa la fadhiisiyo doodu sida u dhacdayna ugumay dhacdeen caawa waxaa sidoo kale iyaduna xusid mudan in cilmi baadhista la sameeyey ay samaysay dhalinyaro baadidoon ugu jirta inay ogaadaan caqabadaha iyo mashaakilaadka dhalinyarada ka haysta inay ka qayb qaataan horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hawl dhalinyaradii dhibtu ay haysatay intay u kaceen u istaageen iyagoo ay yidhaahdeen maxaa dhibina haysata dhibaatada haysata sidaynu si xal uga helaynaa iyagoo cidna waxba ka sugin waxaa iyaduna sidoo kale muhiim ahayd oo halkan ka dhacday oon daawanay in kuwii aan codkoodu meel kale yaalina la doonay oo inta kamarad la qaatay su-aal isku mida la weydiiyo la yidhi waa maxay mushkiladda dhalinyarada ka haysatay inay horumar sameeyaan oo iyaguna ay codkooda kusoo jawaabeen oo yidhaahdeen dhibaatooyinkan baa ina haysataa marka saddexdaa arrimood ee dhacay ayaa odhanaya dhalinyaradu qayb bay ka tahay horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo markaad adigu intani haddaanay dhici lahayn bal ka soo qaad oo halkan loo waayi lahaa dhalinyaro aqoontaale oo doodaa qasha iyo inantii wanaagsanida xidhiidhinaysay oo ka fiican wariyayaasha waaweyn inuu aragnay siday u xidhiidhinayeen dooda si ka wanaagsan oo qofka iyo inay ka soo fakado su-aalaha manaa waxaa maskaxdooda ku jira su-aalo maskaxda qofka bini aadamka xantaxantaynaya inay weydiiso iyo siday u sugtay in qof kastoo dibeyt ka qaybgelaya ama dooda uu ka qayb galo waxaa sheegteen saddex arrimood dhibaatooyin badan baa sheegteen laakiin saddex arrimood baa xooga saarteen mid waxa weeyaan shaqa la-aanta waxaan idinku raacsanahay in arrinta dhalinyarada iyo shaqa la-aantu ay tahay mashaakilaadka ugu waaweyn ee maanta Soomaaliland u yaala ee ay tahay in xal loo helo iyadoo taa laga jawaabayo ayaa tallaabooyin loo qaaday si mushkiladdaa loo xaliyo welina way socdaan waxa mid ka mid waxa weeye Somaliland inay yeelato qorshe guud ama waxaan afka qalaad lagu dhahdo Somaliland national plan oo qorshaha
qorshahaasi uu noqdo kaynoo sheegaya dhibaatooyinka iyo waxa la qabanayo dhalinyaraduna waa ka qayb haddii koobii imaka aanad ashsu lahayna wasaaraddeeda tag xafiiska boorama ku yaala nuqul ka mida ka qaata wuxuu caddaynayaa waxyaalaha aynu qabsanayno dhalinyaraduna qayb weyn ayay ku leedahay qorshaha waxaa kaloo iyaduna dhinacaa loo qaaday si wax looga qabto shaqala-aanta waxaa la sameeyey sanduuq dhalinyaradu a iska leedahay oo somalilan mataqaanaa youth fund la yidhaahdo marka lacagta sanduuqa ku dhacaysa oo imika socota hadda dhalinyarada booramayaane socda waa lagu kala tegay sanduuqi waxaa la qaybsaday baa cabdikariimi sheegayaa sorinna imika qorshii baa socda waana la hubinayaa waa la sugaya guddiga madaxweynuhuna xil buu iska saaraya arrintaasoo sida hormuud ku ah in la sugo cidda maamulaysa inay yihiin cid ka kooban dhammaan gobolada jamhuuriyadda somalilan qabiilooyinka ma aha gobolada guddigaasi waxaa laga rabaa markaa waa sanduuqa dhalinyaradu markay fikrad curisay halabuur la timaado ay lacagta ka codsanayso fikradaad qorta hadday tahay fikrad loo bogay waa halka aynu doonayno inaynu ka maalgelino marka idinna waa idinkii lahaa dhalinyarada caqabadaha haysta waxaa ka mid ah markay fikraddii curiyaan meel ay ka helaan lacagta ay fikraddaa kaga shaqaysiinayaan ma jirto marka sanduuqan baa xal u ah boqolkii kun ee dollar ee ugu horreyna madaxweynaha ballanqaaday waxaan salaamayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladan muhiimka ee dooda caafimaadka qabta halkan isku dhaafsanayay ee barbaarta aayaha ummadda oo run ahaantii aan anigu saaxiib gaalan lahay oo ilaa maalintii furitaankooda ilaa xafladii dambe aan ka anu joogo horta mid baan odhan lahaa oo wasiirka cabdikariimna uu dareemay waxa weeye xafladda sanoo kalaa habeenka saasoo kalaa habeen la heli karo ma arkayo dadkii aan wax u sheegi lahayn ama tala aan weydiin lahayn ama wax ka geysan lahaa fikir ma arkayo intii soo diyaarisay uba haddana ka dooday oo haddana ku celisay dadka marka labun baan idin weydiinaya labun bay mid noqonaysaa waxaan idin leeyahay barbaartii ma idinkaan soo marti qaadin dadkii ama odayaashii aqoon-yahanadii jaamiciyiintii mise iyagaa idin sagsaagay oo aan idin tixgelin labada mid bay noqonaysaa labada kee u dhacda waayahay haddii ay taasi tahay horena waan u sheegay imigana waxaan u maranayaa maarata warbaahinta dadka ay khusayso arrimaha sanoo kala marka ay dhallinyarada soo diyaariso haddii ay tahay jaamacadaha macallimiinta aqoon-yahanada kale siyaasiyiinta madaxda waa in ay kala soo qayb galaan dhallinyaradu habeenka saasoo kalaa ee ay wax diyaarinayaan ee ay cilmiyeynayaan in lagala soo qayb galo calaalaqal loo soo buuxiy meesha la dhagaysto xaq buu li waxaan leeyahay yaanay dhicin dhallinyaro soo abaabushay oo habeenkan qiimaha loo kala keentay inaan lagala soo qayb gelin waa foolxumay nagu tahay waa in lagala soo qayb galaa taana haddii aad idinku u yeedhan oo lidinma waaye xaal baan igasi anaa idinka xaalay waxaan ku dadaali doonaa inaana dib u dhici doona hadii caawa habeenkani runtii habeen aad iyo aad xusuusu la weyi waa jiilkii dhallinyaradii ee somalilan oo maanta isweydiisay maxaa hor taagan horumar dhallinyaradii maxaa ka hor taagan horumar had maqlayseen doodii halkaa ka dhacday run ahaantii aad iyo aad iyo aad bay qiimula way cilmiyeysneed wixii hor taagnaabaa la sheegay wixii lagaga bixi lahaabaa la sheegay yani waa doodaha ay somalilan u baahan tahay waa doodaha somalilan ay u baahan tahay in sidaasoo kale loo badiyo oo meel walba sidaad u sheegteen inay hargeysa ka dhacdo oo gabilaya ka dhacdo oo burco oo berbera oo ceergabo meel walba gobolada somalilan ay tagso loo baahanya waayo wax badan baa ka soo baxay baan u faraxsanahay
waxaan ku faanayaa oo ku qanacsanahay oo ku raalli ahay oo iga iibsanaya oo la shirtagi kara aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo maskax furnaanta gabadhii halkaa ka daadahenaysay barnaamijka iyo inta barnaamijka ay u daadahaynaysa halkaa fadhida intaasaan waxaan runtii dareemayay boogu ila dareemay uun suldaan samatar oo keliya oo aabahaya oo ah in mar walba dhidigeenu uuna nasiib iyo fursad u helin waxyaabaha aynu labahaan u helno waana waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo jira dhibaatooyinkaa jira qaar waa la taabtay qaarna waxbaa laga tegay waxaan geli doonaa kuwa wax laga tegay anu waxaan qabaa problemka dhallinyarada haysta iyaga ayaa kowka beri dhaweytoon barnaamij dhagaystay barnaamijkaas wuxuu ka hadlayay kongareeskan america buu ahayo islaam baa hadlaysa waxaa wax ka weyn mukhaadaraadka bulshada maraykanku ay isticmaalaan baa soo baxay weynaad bulshada haddii shaygaa la gaari waayana bulshada way dumaysaa waxaa la yidhaahdo aad ka hadlayseen facebooka ka warramayseen ee maanta aad arkaysiin in qofku life uu daawan karo gabadha guriga aabbaheed joogta uu life iyagoona dhar xidhnayn waxa dhacday gabadha yarada ee shalay ee keeni jirtay inankii ee keeni jiray in maanta imtixaanka ay daataan waxa ku dhacaya inuu burburo internal problem ayaa qofkan ku dhacay had iyo jeer wuxuu oranaya waan istilaya markuu qofku waa qof gubanaya markuu isqaboojin kari waayo wuxuu isku samaynaya suicide-ka qarsoon ee ah tahriibta